haweenka waqtigan hadda la joogo ma ahayn in hadda ay soo gaarto ama laga hadlo la isku jijiido oo aan maanta baryootan ay naga gaarto ana loo ansaxiyo iyo inaan hadda ku tubtana ma ahayn xaqiiqadii sida xildhibaanadii ugu horeeyay ay sheegeen runtii gabdhaha doorka ay ku leeyihiin bulshada ragga waa kaga badan yihiin waa kaga dhibaato badan yihiin waa kaga wax kasta hooyaa tiirka iyo udubka aasaaska u ah haddana in siyaasadii ay noqoto 30% inaan maanta baryo ku raadin horta qalad waaye hadduu ilaahay yiraahdo horta markii la gaaro one person one vote la gaaro siyaasadan oo qof walba soo istaago ayadaa isa sixi doonto markii hadda laakiin tan aan taaganahay waxay tahay axsaabta markay timaadana inay ku talagalaan 30% iyo wax ka badan laakiin maanta waxaan u taaganahay in ay doodaanba iska soo gaabato oo raggeeni wiilasheeni oo shalaytan nagu caawiyay qaar badan aba cadeeyo codkooda inayna siiyeen aaday ugu mahadsan yihiin kuwa yar muranka yar ugu jirana waxba waswaasina hawlwelina gabar wax idinka haleemayso gabdhaha waa wixii wadankan soo dhisay mar walba idinla dhinta oo idinkaga horeeya nin aan hooyo soo dhisin siyaasadda ma soo gelin nin walba guriga laga soo dhisay siday saaxiibaday hore u sheegeen hadda waa la idin hanjabay waa doctor waxa la yiri nin walba asaa iska arkaayo guriga isaga arkaa marka idin hanjabi mayneen insha Allah isa saxa oo ragow gacantiina noo taaga waxa idin ku codsanaynaa in naro ansixiyo gacanta la taago 24% kan gabdhaha ku fadhiyo gabdhihii intaas hadda la meel mariyo sida hore loo sheegay asxaabta iga horeysayna 6 maqan 6daasna dadka ay ku maqan tahay waa la og yahay beelaha ay ku maqan tahay maanta beel ay joogtaa bari waxay noqonaysaa xisbi marka intaan hadda xisbiyada iyo wixii arintooda markii la galan way saxmi doontaa 6daasna ragga ku fadhiya gardarada ugu fadhiyaha iska diibaano beelahana ha isa soo saxaano 24% kan inay gabar kaliya ay ku astaysan tahay gudoomiyana haday waa saxay gudoomiyihii guddigii hadda way cadeeyeen qodobkii hadda lagu soo saxay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo in amaanta ay nala dhaafin oo waxaan isjidkan waqti badan aan dhumaayo 4 qodob kala noo harsan xeerarka 4taas xeer kale si looga shaqeeyo howlo badan aan waqti waqtina ma hayno waxaan codsanayaa in maanta insha Allah cod la geliyo